xuska munaasabadan waa sanadkii shanaad oo Soomaaliya lagu qabto waxaana 3 sano ee la soo dhaafay qabanayay guddiga Olombikada Soomaaliyeed iyo xiriiradiisa. sanadkan iyo sanadkii hore waxaa ku soo biiray wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga waxaana sanadkan uu ahaa mid 3 geesood ah oo ay iska kaashanayeen guddiga Olombikada Soomaaliyeed iyo xiriiradiisa, wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga iyo gobolka Banaadir. 357 dhalinyaro ah oo matalayay 17 degme ee gobolka Banaadir iyo xiriirka Olombikada ayaa ka qayb galay tartankan orodka ah iyagoona ordayay masaafo dhan 3 kiiloomitir oo ka soo bilaabatay isgoyska kiiloomitir 4 ilaa laga gaaro taalada daljirka Dahsoon. waxaana kaalinta koowaad ka galay orodkan Cali Iidow Xasan, halka labaad uu galay Cabdisalaan Maxamed Axmed, kaalinta saddexaadna waxaa galay Maxamed Muxudiin Yelaxow. intaasi kadib waxaa warbaahinta daljirka Dahsoon kula hadlay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Khadiija Maxamed Deeriye, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariisow iyo sidoo kale orodyahan dalka magac u soo hooyay Cabdi Bila Cabdi, kuwaasi oo ka sheekeeyay ahmiyadda munaasabadan ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed iyo waxa ay kaga dhigan tahay adduunyada. waa markii labaad inta aan xilka wasaaradda hayno munaasabadan ay timaado. munaasabadan waa munaasabad weyn, waa maalinta isboortiga iyo nabadda adduunka oo ah maalin caalami ah. waxaa ku lamaansan maalinta ciyaartooyga Soomaaliyeed oo ah maalin qarameed. waxaan soo diyaarinay barnaamijkan ama barnaamijkan aan ugu talagalnay muddo laga soo shaqaynayay, fikirka la isu keenay ayaa maanta ku soo gabagabowday. waxaa maanta farxad weyn noo ah in magaalada Muqdisho lagu qabto tartanka orodka gaaban Muqdisho Mini Marathon oo aan aad iyo aad uga mahad celinayno wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga, gaar ahaan wasiir Khadiija Maxamed Deeriye iyo bahda isboortiga dhammaantood. sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan inta ka qayb qaadatay tartankan isaga ah, inta qabanqaabadiisa ka qayb qaadatay iyo dhammaan inta bahda saxaafadda ee maanta oo dhan si live ah u tusaysay shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. waxaan aad idinkaga mahad celinaynaa sida aad u sharafteen maanta oo kale, maanta oo ah maalinta nabadda iyo isboortiga caalamiga iyo maalinta ciyaartooyga Soomaaliyeed. haddana in lagu aadiyo in tartan orod ah la qabto iyadoo nala joogo haliyay Cabdi Bila Cabdi waxay noo sameynaysaa taariikh kale oo aad iyo aad u weyn. marka ugu horeysa waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa fikirka wanaagsan iyo qabanqaabada wanaagsan iyo diyaargarowga wanaagsan ee ay wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada iyo wasiiradda Khadiija Deeriye iyo gobolka Banaadir gudoomiyaha Cabdiraxmaan Injineer Cabdiraxmaan Yariisow iyo inta la shaqaynaysa ee gobolka iyo wasaaraddu iskaashiga ay sameeyeen ayna waxa weeye maanta event-ka weyn ay ku soo bandhigeen oo geesinimo iyo dadaal iyo aragti fiican leh ay kaga turjumayaan dareenka iyo shacabka iyo jiritaankeenna iyo ummadeennu inay mar walba u taagan tahay inay wax kasta oo ka hor yimaada ay isu taagto oo aanay cidna uga cabsan cidna uga dambayn ay geesinimo tahay. orodyahanka kaalinta koowaad ka galay orodkii marathonka ee Muqdisho maanta lagu qabtay Cali Iidow Xasan ayaa isna waxaan ka weydiinay dareenkiisa ku aadan guusha uu gaaray, asigoo ka warramaya bal waxa ay ugu dhigan tahay orodkan maanta uu kaalinta koowaad ka galay ee ahaa mid ka duwan kuwii la qabtay sanadihii hore ee afarta ahaa. maanta aad aan u faraxsanahay maadaama guul weyn aan gaaray, aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. wuxuu ka soo bilowday number 4 wuxuuna ku soo dhamaaday daljirka Dahsoon. ها rajo weyn aan ka leeyahay inaan ka qayb galo. inaan ka qayb galo aad iyo aad aan ugu hamweynahay, waan horena ugu qayb galay, haddana inaan ka qayb galo runtii waan ku hamweynahay oo waxaan u dadaalay oo diyaar garoobo intaas. 3 mar aan ka qayb galay ciyaaro ka dhacay Congo, kuwa ka dhacay Tanzania iyo kuwa ka dhacay Azerbaijan oo ugu dambeeyay 2007. Maxamed Nuur Amiin, Goobjoog, Muqdisho.